diyadu ay tahay qor isku dhiib waxaan runtii ku faraxsanahay in aan soo dhaweeyo kuna wareejiyo xilka ra'iisul wasaare jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre. waxaan hubaa in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu u gudan doono mas'uuliyadiisa si hufan oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku diirsadan hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala idmo. waxaan mahadnaq ballaaran u gudbinayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii fursad ii siiyey inaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed u adeego muddo ku dhow 2 sanadood. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, golahayga wasiirada, ciidamada qalabka sida, howlwadeennada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo shaqaalaha hay'adaha dowladda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed taageeradii iyo dhiirigelintii ay goor kasta ila garab joogeen muddadii aan waddanka u soo adeegayay. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa golahayga wasiirada oo runtii muujiyey dhabar adeeg iyo dulqaad xilliyadii adkaa ee uu dalku soo maray, kuna guulaysteen in ay waajibaadkooda shaqo ee ay u hayeen shacabka Soomaaliyeed u guteen si hufan oo sharaf ku dheehan tahay. sababtoo ah hadday caqabado ila imaan lahaayeen hawsha aan dalku u hayay siiba doorashada ma aysan hirgeleen. waxaa kaloo mudan in aan xuso mahadcelin ballaaran u jeediyo guddiyadii doorashooyinka ee heerarka kala duwan lahaa dadaalkii iyo dulqaadkii ay muujiyeen xilligii lagu guda jiray doorashada, taasoo keentay in doorashooyinka dalka si nabad ah ay ku soo idlaadaan. xafiiska ra'iisul wasaaraha, golaha wasiirada iyo dhammaan hay'adaha kale ee dowladda wuxuu waajibaadkoodu koowaad ahaa muddadii aan ra'iisul wasaaraha ahaa hagidda iyo hirgelinta doorashada dalka si nabad ah ugu qabsoonta. runtii inkastoo caqabado iyo khilaafaad siyaasadeed yimaadeen, haddana Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu nagu guulaysiiyey in aan ka gudubno marxaladihii adkaa, xaqiijinana doorasho dalka ka dhacdo iyo isbeddel si nabad ah ku yimaado, taasoo suuragelisay xilwareejinta aan maanta u fadhino. sidoo kale xukuumaddeedu waxay ku guulaysatay in ay joogtayso adeega bulshada iyo dib u habeynta hay'adaha dowladda ee socday sida dayn cafiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo hay'adaha dowladda. barnaamijka xukuumaddeedu waxaa aasaas u ahaa geedi socodka iyo hufnaanta dowladnimada. xukuumaddeedu waxay diiradda saartay howlaha muhiimka u ah geedi socodka dowladnimada sida sugidda amniga, xoojinta dimuqraadiyadda, qabashada doorashada si nabad ah. dimuqraadiyadu ay tahay qor isku dhiib waxaan runtii ku faraxsanahay in aan soo dhaweeyo kuna wareejiyo xilka ra'iisul wasaare jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre. waxaan hubaa in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu u gudan doono mas'uuliyadiisa si hufan oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku diirsadan hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala idmo. waxaan mahadnaq ballaaran u gudbinayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii fursad ii siiyey inaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed u adeego muddo ku dhow 2 sanadood. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, golahayga wasiirada, ciidamada qalabka sida, howlwadeennada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo shaqaalaha hay'adaha dowladda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed taageeradii iyo dhiirigelintii ay goor kasta ila garab joogeen muddadii aan waddanka u soo adeegayay. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa golahayga wasiirada oo runtii muujiyey dhabar adeeg iyo dulqaad xilliyadii adkaa ee uu dalku soo maray, kuna guulaysteen in ay waajibaadkooda shaqo
ee ay u hayeen shacabka Soomaaliyeed u guteen si hufan oo sharaf ku dheehan tahay sababtoo ah hadday caqabada ila imaan lahaayeen hawsha aan dalku u hayay siiba doorashada ma aysan hirgeleen. waxaa kaloo mudan in aan xuso mahadcelin ballaaran u jeediyo guddiyadii doorashooyinka ee heerarka kala duwan lahaa dadaalkii iyo dulqaadkii ay muujiyeen xilligii lagu guda jiray doorashada taasoo keentay in doorashooyinka dalka si nabad ah ay ku soo idlaadaan. xafiiska ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada iyo dhammaan hay-adaha kale ee dowladda wuxuu waajibaadkoodu koowaad ahaa muddadii aan ra'iisul wasaaraha ahaa hagidda iyo hirgelinta doorashada dalka si nabad ah ugu qabsoonta. runtii inkastoo caqabado iyo khilaafaad siyaasadeed yimaadeen haddana allah subxaanahu watacaala wuxuu nagu guulaysiiyey in aan ka gudubno marxaladihii adkaa xaqiijinana doorasho dalka ka dhacdo iyo isbeddel si nabad ah ku yimaado taasoo suuragelisay xilwareejinta aan maanta u fadhino. sidoo kale xukuumaddeedu waxay ku guulaysatay in ay joogtayso adeega bulshada iyo dib u habeynta hay-adaha dowladda ee socday sida dayn cafiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha dowladda. barnaamijka xukuumaddeedu waxaa aasaas u ahaa geedi socodka iyo hufnaanta dowladnimada. xukuumaddaydu waxay diiradda saartay howlaha muhiimka u ah geedi socodka dowladnimada sida sugidda amniga, xoojinta dimuqraadiyadda, qabashada doorashada si nabad ah iyo allabari iyo dadaal inuu uga soo gudbay marxaladaas dhibka badan ee qodxaha badnayd ee runtii aan aada uga wada cabsanayna kulligeen. isaga iyo tiimamkii la shaqeeyey iyo odayaashii marka dambe majaraha u qabtay labada aqal runtii iyo saraakiishii amniga iyo dhammaan intii ka shaqaynaysay waanu mahad celinaynaa. waxaad dalka ka soo gudbiseen marxalad aada u adag oo xusuus runtii ciddii ka naxaysa dalkan xusuus ku reebaysa mararka qaarkood sidii dadkeenu ay u niid jabsanaayeen iyo sidii ay halista u gashay Soomaaliya. waxaa la yidhaahdaa dadka Soomaalidu ma xusuus badna markuu wuxuu saa u dhammaado dadku waa isku wada miduun. kii dadka eber ka dhigay oo laayay iyo kii dadka badbaadiyey 2 bilood kadib isku mid bay noqonayaan. adduunkana sidaas kama jirto. qofku wuxuu leeyahay sijilli iyo document lagu yaqaan uu leeyahay qofku iyo record. waxaan rajaynayaa mudan ra'iisul wasaare in markan Soomaalidu xusuusteedu ay yar dheeraan doonto oo laga xusuusnaan doono. waxaan ballan qaadaynaa xukuumaddan intay jirto in aan dadka ku xusuusino marar badan siyaabo kala duwan inaan dadka ku soo hor istaajino siyaabo kala duwan iyo munaasabado kala duwanna inaan kaaga xusno. marka aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa. mahaddaas runtii waxaan u celinayaa ra'iisul wasaareyaashii hore ee dalka. haddaan kooyay sheekadu maaha. waxaan waa cumulative iyo waxyaabo la soo kor saaray oo ninba maalinba meel ka soo qaadayo ninba maalin keenayo. kuwa meeshan soo galay iyada oo aan sidan ahayn iyo si ku dhow la wada degan yahay oo burbursan tahay oo aan kuraas oolin oo ayna dawladda ka jirin. waxbay ku bilaabeen meel bay soo gaarsiiyeen. waanu mahad celinaynaa. kuwa ka sii horeeyay oo Talyaani ka bedelayba oo Soomaali ka dhigay waanu mahad celinaynaa. qof kasta oo waddankan soo xukumay especially prime ministeradii kala duwanaa ee naga horeeyay kii qaada ku soo daray iyo kii kursi ku soo daray iyo kii xaashi ku soo daray intaba waxaan leenahay waad mahadsantihiin. intii dhimatay allah u naxariisto. inta noola guul cibaado iyo caafimaad baan u rajaynaa. shaqaalaha oo PS ku kow ka yahay oo runtii had iyo habeen mar walba u taagnaa in
ay najixiyaan siyaasadda xukuumadda iyagana waan mahad celinayaa golaha wasiirada oo runtii dadaal badan galay oo qof waliba meesha uu joogay ka soo shaqeeyey waan u mahad celinayaa